barasab ku-xigeenka gobolka Saraar Bokor Shide Cali oo warbaahinta maanta ugu waramayay xafiiskiisa ayaa waxa uu ka xog waramay xaaladda guud ee gobolka Saraar waxaana uu sheegay in bulshada ku dhaqan gobolka Saraar ay si mug leh u soo dhaweynayaan hawsha shidaal qodista ee dhawaan la filayo in laga bilaabo gobolada Saraar iyo Togdheer sidoo kale barasab ku-xigeenka gobolka Saraar waxa uu waxba kama jiraan ku tilmaamay eedeymo ay qaar kamid ah odayaal ku hadlay magaalada Burco ay u soo jeediyeen wasiirka biyaha iyo sidoo kale hay'adda qodista shidaalkaasi bismillaahir rahmaanir rahiim maanta bishu tahay 9 bisha 7 halkan waxaan ka qorsheeyay shirkaas ku saabsan xaaladda nabadgelyada iyo xaaladda maartay horumar waxqabadka xukuumadda ay wado waxaan maqlay waxaan arkay dad ka hadlay gobolka Burco oo ku hadlay magaca gobolka Saraar oo ka soo horjeeda shidaalka laga wado labada gobol Togdheer iyo Saraar halkan waxaan uga baaqaya dhammaan gobolka Saraar bulshadeeda kala duwan dibadda gudaba in qorshaha shidaalka la wada uu yahay qorsho ay xukuumaddu hogaaminayso oo aan ahayn mid cid loogu danaynayo laakiin dalka iyo dadka iyo qaranka loogu danaynayo cidii gobolka Saraar ka tirsan dadka hadlay waayeelka hadlay ee gobolka Saraar magaciisa ku hadlay waa dad ka soo jeeda gobolka Saraar iyo gobolka Togdheer iyo gobolka Saaxil cid kastaba ha ahaadeen maadaama gobolka Saraar sheegteen waxaan u sheegayaa wixii xog ah ay u baahan yihiin inay yimaadaan gobolka Saraar si loo siiyo xogta hawsha socota iyo nidaamkeeda hawsha waxaan ku ognahay hadda gobolka Saraar barasabka gobolka Saraar baa u hadlay gobolka Saraar xuquuqda uu leeyahay anigoo barasab xigeenkii baa u hadlay xukuumadda u hadashay madaxweynaha u hadlay wasiirada dhammaan baa gobolka u hadlay in dadka loo cadaalad sameeyo oo gobolada loo cadaalad sameeyo wixii shaqaale ah ilaa iyo haddana sida wax u socdaan waa si xogtiisa aanu hayno oo dhameystiran ilaa iyo hadda shirkadu iyo wasaaraddu qoolna kama duwin wadadii aan ku balansanayn ee aan gobolka kaga shirnay oo barasabkuna wakiil kaga ahaa gobolka aniguna barasab xigeenka ka ahaa maayirku ka hadlay wasiiradu ka hadleen gobolka soo jeeda waxa weeyaan in xadgudub la sameeyo ma banaana cid kasta oo waa la caban karaa cidda cabanaysa si aan xog u siino waa inay xafiiska gobolka yimaadaan gobolka wuxuu leeyahay cuqaal wuxuu leeyahay sulaadiin wuxuu leeyahay xildhibaano baarlamaan wuxuu leeyahay xildhibaano golo deegaan wuxuu leeyahay wasiiro wuxuu leeyahay barasab wuxuu leeyahay barasab xigeen wuxuu leeyahay maayiro cid sheegan karta oo af gobol ku hadli karta oo shacbi ma jirto oo xukuumaddu way wato waxaan u aragnaa arinta in dabada laga riixayo oo dad dana kala leh ay dabada ka riixayaan oo kuwii shidaalkii hore joojiyay oo aan ognahay ay dabada ka riixayaan waxaan leeyahay cid kasta oo ku kacday nabadgelyo xumo dowladdu waxay ka qaadaysaa tallaabo sharci ku waafaqsan ciddii cabasho rabtaana waa inay xafiiska timaado si aan xog u siino waa la caban karaa way caban karaan laakiin horta marka hore haddaanay xafiiska gobolka Saraarba iman oo aanay xog bixin weydiin si ay cabashada u soo gudbinayaan hanoo yimaadeen anaga xogtii hayna gobolka ha yimaadeen waxaan ognahay shirkadda gobolka Saraar hadda shirkadda qaatay wadada waa kuwa leh Muuse Bokor iyo Ruyo sheegay waxa qaatay nin Muuse Bokor qaatay jibril kalno hadii qabiil ay lagu xisaabayo steed gaari oo loo tartamay afartii shirkadood ee u tartamay mas'uulka shirkadu isagoo aan tixgelin tartan hadda min laba u siiyay min laba ayuu siiyay nin deegaan kamid ah ayaa qaatay labadiisii afar iyo toban tuulaan inagu leena todobadii tuulana ee laga shaqeeyana waa laga shaqeeyaa dadkii loogu talagalay la shaqeeyo shirkadda way qoray waxa kale sheegaya waxa weeyaan wasiirka wasaaradda biyaha iyo horumarinta biyaha kheyraadka wasiirka waa wasiir ka ballaaran ama ka mug weyn waxa lagu metelay
oo dadka ka hadlay burcay ku mitireen isagoo fulilaya amarka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu juhdi badan galiyay inuu gobolka Saraar biyo u qabto wuxuu ka qoday laba riigo macaan oo shaqeynaya wuxuu ka qabtay dhaamkii weynaa oo shaqeynaya wuxuu ka qabtay dhaamkii meesha laga ka dacar xisi oo lacag waayo waxaad shay dorhadna waxa dhagaxeen kaam dhaamkii barwaaqo dhammaanba wuxuu kiciyay ceelashii gobolka dhan ilaa haddana wuxuu wadaa inuu shaqadii sii wado gobolka Saraar si ay biyo uga dhigto riigii gowsa weynay waxa la balay gowsa weynay waa ka dhigay oo bulshada gobolka Saraar degtaa ay ka cabto ay degan yihiin dham riig wey waxa weeye ninka waxa lagu metelay ilaa waa qabyaalad buu ka shaqeynaya waa ninka mid weyn waxaan gobol ahaan baan ku hadlaa afka gobolka Saraar waxaan wasiirkaas siinay adiga iyo xukuumaddaadaba aad madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland wax qabadka gobolka wada iyo adiga waxaan ka siinay xal maanta eeda gaar ahaan adiga wasiir ahaan waxaan ka siinay xal ma ka siinay ma tiin ku shaqeeyo qabyaalad iyo kala qoqob iyo kala reereyn insha Allah bakariin madax dhaqameedka gobolka Saraarna taan mid lamid ah baad ka arki doontaa hadii la ka dhigo waxaan ku sheegay aan ka codsanaa in arinta iyada ay waxba aan iskrin shaqada gobolka uu waday iyo horumarkii barti ka sii wado aad iyo aad waa mahadsan salaam calaykum wa rahmatullahi jaamac bood cadee warbaahinta qaranka Soomaaliland aynaba